faqriga iyo saboolnimada reerka ku habsatay adiga ayaa sabab u ah. Sababta irsaaqada xaafadda ay ciriiri u noqotay markasta biilka uusan reerka ugu filneen oo baraka la'aan ay u tahay adiga ugu wacan. Moogtahayna hal qalad ama dembi weyn oo aad ku jirto in uu sababi karo in reerkiina dhammaan uu saameeyo oo noloshiina ciriiri ay gasho. Reerka dakhligii uu haystay dakhli la'aan uu noqdo, baraka la'aan ay ku dhacdo, faamilka biilkii adeega bilaha ay isgaarsiin waayaan oo markasta duruuf, gaajo, saboolnimo baahsan ay ku jiraan. Dhalinyaro badan ayaa maanta ku tahalukaysan daawashada aflaanta dhaqan xumada, muuqaalada galmada, taasi oo aad u burburisay mustaqbalkooda iyo kan reerkooda. Qofka ama wiilka ama gabadha ku dhex jirta sinada, sigaysiga, daawashada muuqaalada anshax darrada waxay keeni kartaa in gurigaasi qofka uu ka dhashay ama uu ka soo jeedo lacag ay soo gasho laakiin aysan istaagin. In shaqooyinku ay burburaan. Haddii uu wiilka isaga uu reerka biili jiray, shaqadii ay ka burburto. Fursaduhu ay xirmaan, deen iyo baahi badan reerka mashaqo ay ku habsato. Diinteena Islaamku waxay ina baraysaa in noloshu aysan ahayn mid qofka keliya ku kooban. Falalka qofka uu sameeyo, wanaag ama xumaan, waxay saameyn ku yeeshaan qoyskiisa, reerkiisa iyo xitaa jiilasha ka dambeeya. Sidaa daraaddeed, dembigu ma ahan arrin qofka u gaar ah, balse waa cudur saameeya qoys dhan. Culummadu waxay sheegeen in kasbashada gacanta oo dembi lagu kasbado aysan mar walba noqon qof keliya, balse ay ku fido guri dhan, gaar ahaana marka dembiga uu noqdo mid joogto ah oo qarsoodi ah ama fagaaraba lagu sameeyo. Dhalinyaro badan oo aafadan ku dhex jirta ayay digniin u tahay in musiibo weyn ay ka dhalanayso haddii ay joojin waayaan ama ay weli sii dhayalsanayaan falkan foosha xun ee maanta jiilkeenna ay dhex muquuranayaan. Dunidan casriga ee maanta aan joogno waxay keentay in waalidka uusan la socon waxuu cunugiisa ku mashquulsan yahay. Cunugii xurriyad ayaa la siinayaa, telefon ama tablet ama kombiyuutar ayaa qolka loo dhigayaa. Marka khalaas waalidka wax dabagal ah kuma sameynayo. Sidaas ayuu wiilkana ku bilaabayaa in uu barto aaladaha faafiya dhaqan xumada. Porn addictionka, in qofka uu la qabatimo daawashada muuqaalada xunxun, waxaa inta badan ay si joogto ah ay u keentaa in noloshiisa dhibaato ay soo gaadho, sida shaqada oo yaraata, xiriirka oo daciifa, cilaaqaadka bulshada qofkii kala dhexeeya oo xumaada. Haddaba ma doonayo inaan ku dheeraado sababtoo ah muuqaalo badan oo looga hadlay arrimahan waxay yaalaan YouTube-ka, laakiin si guud cilmi baarisyo waxay isku raaceen intooda badan in cudurro halis ah laga qaado sida niyad jab, walwal, gocasho joogto ah oo qofka markasta uu gocanayo dembigii uu sameeyey. Inta badan culummada Islaamka, gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed, waxay ka digeen balwadda daawashada galmada, muuqaalada galmada ee porn addictionka, maxaa yeelay waxay dhaawac u tahay ama ay ku tahayba akhlaaqda qofka muslimka. Waxay saameynaysaa xiriirka guurka, waana shay xaaraan ah. Maskaxda oo wasakhowda, rabitaanka xumaanta oo bata, cibaadada oo culays ku noqoto qofka, noloshii oo macaankii iyo dhadhankii ka dhammaato. Qofka marka wuxuu dhihi karaa anigu si qarsoodi ayaan u dambaabayaa, cidna iima oga. Laakiin Alle waa og yahay, saameyntuna way muuqataa. Waxaa laga yaabaa dad badani in ay isweydiinayaan sababta qofka isagoo qura waxa uu sameeyey ay u galaafanayso guri dhan, tan faamilkoo dhan, faamili dhan oo dhisan ama taagan oo buuxa oo gebi ahaanba ay saameyn ku yeelanayso. Jawaabtuna waxa weeye ayadda Qur'aanka Alle ee uu leeyahay ma bedelayno xaalad qoom ilaa ay bedelaan waxa naftooda ku jira. Marka qof qoys ka mid ah uu ku adkaysto dembi, ducadii reerka way daciiftaa, salaadii guriga way yaraataa, xuskii Alle subxaanahu wa tacaala gebi ahaanba meesha ayuu ka baxaa, nabadgelyadii iyo isfahamkii reerka iyo xasiloonidii iyo wada noolaashihii iyo walaalnimadii gebi ahaanba way lumaysaa. Carruurtuna waxay noqdaan kuwo waddadii ka leexda oo reerka ku soo jeesada. Reerkana sidaasi waxa uu ku noqonayaa reer gebi ahaanba burburay. Aqoonyahanadu waxay sheegeen in sinadu ay keento mas'uuliyad darro iyo maamul xumo. Aabbihii reerka maamulaya oo mas'uuliyadiisu ay hoos u dhacdo. Rag iyo dumarba in ay ka jeestaan shaqada iyo qoyska reerka dhismihiisa. Carruurta oo aan la daryeelin ama ay bataan carruur badan oo aan la daryeel la siinin, iyo sidoo kale abaabin iyo tarbiyo wanaagsan oo islaami ah. Saboolnimada oo gebi ahaanba aad u badato. Diintuna waxay sheegtay in wiilka ama gabadha
ay noqon karaan sabab khayr ama shar ku timaada waalidka. Inkastoo dembiyadu ay khatar yihiin, haddana Alle waa naxariis badan yahay. Waxaan qaybtan kugu soo gudbinayaa tallaabooyin lagu badbaado. Waxaa ka mid ah qofka in uu la yimaado toobad daacad ah, in salaada qofka uu badiyo, soonka qofka uu soomo, gaar ahaan qofka dhalinyarada naftiisa xakameyn kari waayey in soonka uu ku dadaalo, in qofka uu ka fogaado asxaabta xunxun ee u horseedaysa ama ku ridaysa dembiyadan aadka u foosho xun, in indhaha iyo qalbiga qofka uu ilaaliyo oo uu dhowrsanaado. Waxaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkan qaybtan aan ku eegi doono haddaba sida looga fogaado macaasida, filimaanta xunxun iyo wax walba oo qofka markaasi Alle subxaanahu wa tacaala ka dheereynayo. Marka hore qofka waa in uu ogaadaa oo uu fahmaa dhibaatada inta ay gaarsiisan tahay saameynteeda. Qofka inta uusan joojin falku waa inuu fahmaa khatartiisa. Filimadu gaar ahaan aflaantan anshax xumada ah ma ahan madadaalo, waa qabatiin maskaxeed. Fahamku waa tallaabada koobaad ee xalka. Saameynta waa in marka koobaad xakameynta indhaha lagu dadaalo. Indhuhu waa albaabka ugu weyn ee qalbiga. Hal muuqaal oo xun ayaa sababi kara fikir ama rabitaan xun. Waa in qofka uu ka fogaadaa sawirada iyo muuqaalada shakiga leh. Baraha bulshada xad dhaafka loo isticmaalayo iyaguna waxay sababi karaan muuqaalkiisa xiga inta aad sii dhaafayso waxaad ku dhici kartaa dabin in aad aragto aflaan xun. Sidoo kale ku daawashada telefoonka kelinimada iyo mugdiga waa qayb ka mid ah waxyaabaha inta badan qofka u horseedo in uu dembiga ku dhaco. Qofka in jadwal nololeed uu samaysto, shaqo ama xirfad qofka uu yeesho, akhris ama waxbarasho qofka uu markaasi naftiisa ku mashquuliyo, in uu ka qayb galo howlo diini ah, jimicsi joogto ah iyo waxyaabo dani ugu jirto. Badanaa dembigu waxaa qofka inta badan uu ku dhacaa goobta u keentana waa habeen dambe ama xilli dambe oo habeenbar ah ama niska habeenkii saqda dhexe oo qofkii keligii uu yahay, gogashana keli uu ku yahay, telefoonka gacantana uu haysto. Xalku waa qofka in uu seexdo goor hore, in telefoonka uu ka fogaado, sidoo kale in uu ku seexdo meel dadku ay la joogaan oo macquul ay tahay in dadka agagaarkiisa fadhiya ay shanqadhiisa maqli karaan. Teknolojiyadda qofka in aabyada inta badan xanibaya muuqaalada xunxun in uu iska xanibo, in sidoo kale screen timekiisa uu xadido, muddada telefoonka uu isticmaalayo in uu xakameeyo, in uu sidoo kale passwordka uusan isagu inta badan gacanta ku hayn oo uu noqdo mid markaasi uu isagu gebi ahaanba iska xirayo si uusan u daaban meelaha muuqaalada xun ay ka jiraan. Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan maanta. Waan filayaa dad badan in dhiirigelin uu noqon doono, wax badanna ay ka dhex fahmi doonaan.